kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheeko kale oo aad u xikmad badan taasi oo aad maanta si weyn uga bogan doontaan. Halkani waa barta aan ku leenahay YouTube-ka. Dhageysi wacan. Muuqaalka haddii uu ku soo gaaro ama sheekadan haddii ay dhegtaada ku soo dhacdo, waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalka like noo saartid. Mahadsanid. Nin harqaan leh ama dawarle ee tuulo yar deganaa waxa uu tolay dhar aad u qurux badan, qiimo fiican uu ka iibin jiray dharkaasi. Waxaa maalin u imaaday nin maskiin ah oo reer baadiye ama reer miyi ah. Wuxuu ku yiri, ganacsigaaga lacag badan ayaad ka heshaa, maxaadan masaakiinta tuulada ku nool u caawinaynin? Bal u fiirso kawaanlaha ama ninkii hiliblaha tuulada oo aan lacag badan haysan, balse hilib bilaash ah ayuu u qaybiyaa masaakiinta maalin walba. Ninkii harqaanlaha ahaa umuusan jawaabin. Intuu si degan u dhoola cadeeyay ayuu iska aamusay. Ninkii miskiinka ahaa isagoo xanaaqsan ayuu soo baxay. Dadkii tuulada ayuu ku faafiyay in harqaanlaha taajir yahay balse uu bakhayl yahay. Markaas ay dadkii tuuladu ka xanaaqeen ninkii harqaanlaha ahaa. Muddo kadib waxaa xanuunsaday ninkii harqaanlaha, mana jirin qof ka mid ah dadkii tuulada oo soo booqday, sida ayuuna ku dhintay. Maalmo ayaa ka soo wareegtay, dadkii tuulada ayaa ogaaday in ninkii hiliblaha aanu hilib bilaash ah u qaybinayn dadka masaakiinta. Marka ay weydiiyeen sababta, wuxuu yiri, hilibkii masaakiinta aan u qaybin jiray, lacagta waxaa dhiibi jiray ninkii dawarlaha ama ninkii sharqaanlaha. Isaga wuu dhintay, sidaas ayay ku joogsatay sadaqadii. Dadkii tuulada dib ayay ka ogaadeen wanaagii ninkii dawarlaha ama sharqaanlaha uu u samayn jiray. Wuxuu igu yiri, nolosha qabriga ka jirto waa xayaato noocee ah. Marka uu sidaa leeyahay, waxa uu malayn jiray kaliya meeshan ay tahay god qodan oo qofka la sii rida oo aan shaqo kale ka socon. Qofka sidaa oranayo waa runtii, xitaa adigaan sheekadan dhageysanayo marar badan waad soo dulmartay qabuuro cid lagu riday oo aan wax laga dareemaynin ciqaab iyo barwaaqo toona. Waa maxay qabri? Maxaad ka taqaanaa waxa uu yahay qabriga? Dadka intooda badan dhab ahaan uma fahamsana waxa uu qabriga yahay. Kaliya waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay god meel laga qodo qof walba lagu rido. Laakiin xaqiiqda arrinka taas waa ka weyn tahay. Tusaale, ma awoodaa inaad caawo seexato guri aad u weyn adigoo labada gacmood laga xiray, indhana laga daboolay? Jawaabta malaha waa mayo. Oo siday tahay waa sidaasi. Jawaabtu waa mayo. Ma awoodaa barkan inta aad wajiga saarato muddo 5 daqiiqo ma ku hayn kartaa? Jawaabtu waa mayo. Ma awoodaa inaad dhex jiifato qol ay ka buuxaan masas iyo abeesooyin? Jawaabtu waa mayo. 1 saac in la eg hal dhinac oo jirkaaga ka mid ah ma u jiifi kartaa? Jawaabtu waa mayo. Runtii waxaasoo dhan ma awoodid. Ka waran xaalkaaga markaad gudaha qabriga gasho, adigoo aan u diyaarsanayn, karfan kaliya xiran, surwaal wadan, kaba la'aana, gacmaha ka xiran, indhaha ka daboolan. Bal ka waran noloshaas ama meeshaas mugdiga ah. Waa sidee xaalkaaga marka aad aragto dhagaxaan dhinacyada kaaga wareegsan gudaha eelka ee aad dhex jiifto? Waa sidee xaalkaaga marka aad kaliya wax maqlayso laakiin aadan jawaabi karin? Dadka aad rabto inaad salaanta wax ku celinayay, jawaabta aysan jirin. Maanta $1 haddii ay kaa lunto, waa aragtay sidaad u shalaynayso. Maxaad u malayn kartaa marka aad qabriga gasho aadan wax wadin? Run ahaantii waxaan noqonay kuwo hilmaamsan xaqiiqda naga horeysa iyo xaaladda ka jirta qabriga. Qabriga waxa uu ku leeyahay gurigaaga adduunka hagaajinin hagaajiso, aniga ayaa ah gurigaaga dhabta ah. Maanta dadkii baa horteena ku dhimanaya, mana ku cibr qaadanayno. Asxaab iyo qaraabo ayaa horteena ku naf waayay ama ku geeriyootay, mana u diyaar garoobayno qabriga dhibaatada ka taagan. Haddii aad ka hesho qormadan ama sheekadan, waaba ogahay waa ka heshay, fadlan la wadaag walaalaha kale
oo ku soo biir barta aan ku leenahay YouTube-ka. Ha ku baraarugaan sheekadan iyo dhibaatooyinkan na haysto. hadduu Allaha awoodda leh idmo halkan aan ku leenahay YouTube-ka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sheekooyin dhaxalgal ah kuwaasi oo aad wax ka kororsan doontaan. fadlan nagu soo biir oo muuqaalkan like inoo saar lana wadaag saaxiibadaada. haddii aad nagu cusub tahay subscribe-tana ha naga hilmaamin. aad iyo aad u mahadsan tahay.